12 jir laba jeer uur qaaday oo furniin degdeg ah ka dalbanaysa ninkii qabay. intaan u gudagelin sheekadan xiisaha badan haddii ay tahay markii kuugu horeyso aadna soo booqato waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto mahadsanid. gabadhan oo magaceeda lagu sheegay Amaalah da'deedana lagu sheegay 12 jir ayaa wareysi ay bixisay waxa ay sheegtay in ay furniin degdeg ah ka dalbanayso ninka qaba maadaama qasab loogu dhisay markii hore. wareysiga gabadhan laga qaaday ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ah meesha ku ahaa aabaha dhalay gabadhan waxaana la weydiiyay sababta ku kaliftay in iyada oo aad u da'yar uu ku daranin. waxa uu sheegay in duruuf haysatay awgii uu gabadheeda ninkan ugu dhisay maadaama reerkiisu ay yihiin reer dhaqaale yar oo aad isugu filnayn. Amaal oo wareysigeeda sii wada waxa ay sheegtay in ninkan qaba ay dhibaatooyin badan kala kulantay. intii ay barnaamijkan ku guda jirtay waxa ay sheegtay in uu qasbay oo uu dharkeeda jeexjeexay kadibna uu kufsi kula kacay. inkastoo aysan kufsi ahayn waxa dhexmara gabadha iyo ninka isqaba ee xalaash isku ah, balse gabadhan yar waxa ay sheegtay in uu xooga ku kufsaday. ninkan qaba gabadha yar ee Amal ee 12 jirka ah waa 25 jir waxa ayna is arkeen markoodii ugu horeysay habeenkii uu aqalgalkooda ama arooskoodu dhacayay oo horey iskumay arkin. waxa ay sheegtay in erayo badan oo foolxumo ah uu ku dhaho markii ay labadooda wada joogaan. waxaa ka mid ah erayadaasi rabo in aad iga gasho qalada ay xaaskaygii hore iga gasho, ma doonayo in sidii ay u dhaqmi jirtay oo kale aad u dhaqanto. waxa ay sheegtay in nolosheedii guurka ay ugu bilaabatay si qasab ah oo la moodo in ay tahay shaqaale maadaama wax walba oo guriga ku saabsan ay iyadu qabato. Amaal waxa ay sheegtay in ninkeeda markii ay qalad gasho uu bahdilo oo uu jirdilo. 2 mar ayaan uur qaaday, xilliga aad wareysiga ila yeelanayso ee hadda ah uur ayaan leeyahay. ilmahaygii hore waa uu iga soo halaabay sababo la xiriira in dhakhtarka uu ugu yiri ma dhali kartid oo si caadi ah uma dhali kartid maadaama aadan gaarin xilligii aad ku qaadi lahayd uurka. wareysiga intii uu socday gabadhan yar waxa ay sheegtay in aysan doonaynin oo ay rabin ninkan oo meesha looga furo. aabaha dhalay gabadhan ayaa diiday in gabadhiisa yar lagu furo goobta oo amarkaasi uu qaato, dalabka gabadhiisana uu u fuliyo si ninkan ay u kala tagaan. aabaha dhalay gabadhan ayaa waxa uu yiri ma doonayo gabadheyda iyada oo da'yar ah in ay noqoto garoob lagu maadeysto, ma rabo iyada oo yar in nolosheeda ay burburto. waxa aan doonayaa in gurigeeda ay ku astunaato oo ay ninkeeda ka dambeyso. inta badan gabdhaha Carbeed mar haddii ay kala tagaan ninkii ay isqabeen dib dambe uma guursato. nimanka Carabta ahna inta badan ma doorbidaan in ay guursadaan gabar garoob ah ama guur horey u soo martay.